أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابته والسلام يا أنت على أنا سيف عني مقليسان تيم كيجي ما تجوا رأينا كيف نسوي بالميل، لكن إن شاء الله أنت على هنا إذا لو هذا عاوة قيبت على رشة very important dadka aad iyo aad u doonaa mar walba waxaad soo gaartaa caloosha training soo samaysan yaana cuntada hagaajin ka dhimeyso. number 1 waxay ka timid faadka ku fulay caloosha ku fulay inaad cuntada hagaajiso, waxay ka timid cuntada hagaaji diet-ka. Okay, next one waxaan doonayaa marka aad taa hagaajiso cuntadaada iyo hurdadaada waxaad u baahan tahay marka inaad samayso training ka caawinaya inaad maaragtay samayso marka ugu horeysa. The first one inaad calooshaada waxay u baahan tahay faadka badan ee fuulay caloosha ku jira xuubka iyo murqaha intaba uu soo jira. qofkana wuxuu ku sameeyaa inuu maaragtay lafdhabartiisa liicdo, sababta marka waxaa ku bilaabata wax la yiraahdo xanuun waxyaabahaas oo dhanna intiina aan dareemin way ku imanaysaa inaa marka hore maaragtay ka haluu tani markay wixii ku yimaadaan inay ka gabgablaysan maaha, laakiin waxa wanaagsan qofku hadduu marka arko inay calooshiisa soo go'day inuu sameeyo marka uu baahan tahay in maaragtay markiiba ka gaadhi sameeyo. First waxaan kula talinayaa dhammaan ina maaragtay horta marka ugu horeysa maaragtay samaysaan cuntadiina hagaajisaan. That's the first one inuu qofku ogaado waxay ka timid cuntada hagaaji. Next one waxaan u imanaynaa oo loo baahan yahay in qofku maaragtay muskulka xidho maqahan marka u baahan yahay la xidho, sababtay tahay waxa faat soo taraya caloosha marka waxa u baahan tahay marka cuntada hagaajinaa maaragtay marqiina xidho. two attempts ama laba siyaabo baan tustoona caawa waxa kala step by step inshallah tustoona waxay ku saabsan tahay caloosha kaliya. Hadda training soo dhameeyay already waqtiga ka baxayay baan ku jiraa, waxaan doonayaa in la share gareeyo steps walba waxaad samaynaysaa labadan caawd la share gareynayo gurigaaga adigoo jooga. Hadda gym ma joogo, gymkii wixii barihi ma qaadayo waan qaybid way jiraan qaybo caloosha lagu sameeyo, laakiin muhiimaddu waxay tahay everybody mid uu sameyn karo gurigiisa ku sameyn karo aan excuse maaragtay cudur daaranayso gurigiisa jooga. wuxuu sameyn karaa hadaba qofku wuxuu sameyn karaa tuugana ka bilaabay labadan siyaabood ugu horeysa inuu qofku 30 habeenkii sameeyo gurigiisa isagoo jooga 30 oo 60 wuxuu sameynayaa 15 daqiiqo. Okay, waxaan bilaabaynaa insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo inuu qofku maaragtay waxaan ka bilaabaynaa qaarka sare iyo qaarka hoose badan dadku ka caawdaan aan halka hoose xaydho oo maaragtay loo yaqaan inta xaluska ee maaragtay dadka dhigta everybody way ku timaada marka ugu horeysa taasay ku timaada dadka inta ugu badan. marka waxaan doonaynaa qaybta ugu horeysa horta inaan bilaawno qaybta sare bilaabaya inta ka hooseysa asaha qofkuna wuxuu sameynayaa sida ay sheegayaan tustoona insha Allah. tusaale baan siinaya timkayga oo dhamaystay, laakiin waxaan doonayaa maaragtay inaan qofku sida aan jibsaday maaragtay u sameeyo. Okay, labada gacmood labada naasood baad saaraysaa oo sameynaysaa inaad sameyso koow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban iyo toban. Okay, dadka qaar baa samayn karin oo kala maaragtay miisaankooda dhabarkooda kala jirkiisa soo qaadi karin, marka wuxuu baahan yahay qofku inuu sameeyo ama meel uu lagu saaro gidaar oo kala ku qabto ama wuxuu baahan yahay inuu maaragtay wax miisaan loo kala ama qof u qabto si uu doonayo u sameyn karaa. waxaan sameynaynaa tii kale marka wuxuu baahan yahay qofku inuu maaragtay ministe 16 sameeyo ugu yaraan 16 waa inuu sameeyo ilaa 30. waxaan sameynaynaa insha Allah tii kale oo u joogtooyo marka habeen walba gurigiisa xukun markiisa xaliyana sameeyo ta kale aan sameynaynaa insha Allah la share gareeyo. aragtaan tanoo dib bay leedahay
dhibta saas ama hal xadiis sheegaya qofka haddaan aqoon u lahayn in maarta dhabarkiisa wax yeesho kale okay lugaha la qaado wuxuu samaynayaa qofku marka lugaha qaadayo waa dhiganaysaa saas dhiganaysaa lugaha la qaado marka had qofku bilaabo inuu lugaha qaado dhabarku dhulka uu ka kaca wuxuu noqonayaa saas uu kacayaa golahan dhulka ma taxawanay marka waxa ku timaada in qofku dhabar wax ka noqdo lafaha dhabarku wax noqdaan lamana baahna saas oo kale wuxuu sameeyay labadiisa gacmood qofku ayuu baridiisa gelinaya marka dhabarku u degaya saas uu gelinaya isi saas oo dhan qofku isi ma noqonaysa go aba saddex shan marka waynu ilaaliyaa dhabarkiisa waynu labada oo geliyaa marka barida geliyaa caawa intaas ay ku joogtiin insha Allah waad ka faa'iido doontaan haddii qofku sameeyo every single day ama weekly 5 cisho ama 4 cisho weeyaan uu sameeyo gurigiisa isagoo na kisku gym iyo waxaan sheegin gurigiisa ku sameeyo marka wuxuu heli doonaa caafimaad wanaagsan insha Allah waa arki doontaan caloosha wuxuu bilaabaya marka hore sabab xaydh ka dhicin in muuqaal jirkiisa caloosha sixdaan muuqaalka loo baahan yahay sixdaan hadii kale haddii markuu sixir waayaan caloosha ku xabayso la dhabarkaadna guduhu galaya door xanuunku markaas ku bilaabaya waxaan jecelahay inaad si fiican maqlaysaan dhammaan asxaabta ku xidhan YouTube-kayga Soomaaliya Samade waxaad ilaahay insha Allah like share iyo subscribe habeen kastana waad la shariiraan doona wax yar oo wanaagsan oo gurigiina ku sameeysan insha Allah dhammaan wada salaam ya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh